dhalinyaro iska sax caqiidada si acmaashiina ilaahay agtiisa ay uga noqoto mid la aqbala man saxa caqiidatuhu saxa amalu wa man fasadat caqiidatuhu fasada amalu qof waliba caqiidadiisu ay saxmato oo caqiida saxiixa la yimaado amalkiisuna waa saxmaya qof waliba caqiidadiisu ay fasaadana amalkiisa ayaa fasaadaya kam min shaabin qad shabba ala al-ahwa miisaan maanta arkeenna dhalinyarada in badan oo ku barbaartay hawada caqiidadina halka ku halmaama dadku waa saddex nooc qof ka dhigtay caqiidadii hawadiisa qof raacay mutakallimiin iyo falaasife iyo dad dhunsan oo yahuudiga caqiida ka qaatay iyo kuwa ku socda ala nahji saxiix oo caqiidadooda ka qaatay salaf hadii umma caqiido dhanna waxa koobay kalimatu tawxiid qofku haduu qiro ilaahi subhanahu wa ta'ala kaligiis inuu wax uumo oo sifaadka uu leeyahay oo uu qiro kana naso nuqsaan oo dhan waxaad ogaataa qofkaas weli muwaxid ma ah waayo waxa u dhiman inuu cibaadada ilaahi subhanahu wa ta'ala u kala yeelo rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni ya insi umin illa liya'budun inay aniga iibudaan oo aniga i waxidaan mooy ibn abbas wuxuu leeyahay kullu ibadatin fil qur'ani hiya tawhid ibada walba lagu sheego qur'aanka waxa laga jeedaa tawhid qofku haduu cibaadada anwaacdeeda mid kamida ciidan ilaahay ahayn u leexiyo qofkaas wuxuu noqonayaa mushrik qof walba shirka ku dhacana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay inuu amalkiisa burayo la in ashrakta la yahbadanna amaluk hadaad shirki ku dhacdo waxa buraya amalkaaga marka si uusan amalkaaga u burin iskagana ilaaliso shirki qof waliba muslima waxa waajib ku ah inuu barto caqiidada waxa laga yaabaa cibaadada inay kugu kooban tahay salaad iyo zaka iyo soon laakiin cibaadadu inta way ka balaaran tahay al-ibadatu ismun jaami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batin cibaadadu waxa la yiraahdaa magac kulminayo wax walbo ilaah jecel yahay raalina ka yahay oo falal iyo oraahyo ah kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba waxa soo galaya ducadii baryadii soo galayso waxa soo galaya cabsidii waxa soo galaya ar-raja waxa soo galaya salaadii waxa soo galaya sakadii lama soo koobi karo anwaacul cibaada waxa la rabaa marka qofku inuu u yimaado ala wajhi al-khudu'i lillahi war-raqbati bikamal al-hubb lahu wad-dull li'adamatihi qofku inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala duleen iyo madax gujin oo asaga isku gujinayo iyo jaceelkiisa dhameystirnaan dalab oo dalbayo inuu ula yimaado waliba asagoo isku duleynaya iskuna dhiibay ilaahi subhanahu wa ta'ala weynidiisa sida daraadeeda ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ilaahi subhanahu wa ta'ala aabuda adinkoo u saafi gareynaya ilaahi subhanahu wa ta'ala diinka adinkoo shirkigiisa weyn iyo ka yarba ka barax tirayo qofka muslimka inay la fududaato islaamnimada waxay ka imaadaa barasho la'aanta oo baran waaye caqiidada waxa ogaataa qofka iimaankiisa inuu buro tusaale ahaan hadii aad u qosasho qof gaalnimo ku hadlayo ogow iimaankaaga waa buray waxa lamida social media dadka soo fadhiisto erayada kufriga ku hadaaqayo hadaad leeg u saarto adigoo taageernimo u muujinayo waxaad ogaataa iimaankaaga waa buray iimaankaaga waa u jeedaa meel dheer lagu ma jiro waxa lamida sidoo kale qof waliba ku jejeesa gabdhaha muxajibaadka iyo ducaada ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka ugu yeerayo qof waliba ku jejeesana waa lamid iimaankiisa ayaa buray waxa xadiis ku sugan inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima min sakhadi illahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama qofku wuxuu ku hadaaqayaa ku hadlaya kalimad oo kamida ilaahi subhanahu wa ta'ala kalimaadka caragaliya dhig shalaq uma siinayo kalimada sababkeeda marka jahannama ugu hoobanaya meesha la isku jiro waa u jeedaa war hooy caqiidada iska sax caqiidada iska sax caqiidada iska sax